walaalayaal ismaqalku ha jiro xasanadan codka korka ah xoogaa ha la gaabiyo khudbadaha aan dhegaysanno madaxweynuhuna waa noo dambeeya hadalkiisa waxaan rabaa hadda inay la soo dhaweysaan agis xildhibaan cabdiraxmaan macalin بسم الله الرحمن الرحيم مدحويني حسن الشيخ محمود مدحويني هوري دولة فدرالك الصومالية سياسيين تكالي هالكان فردية علماء الدين هوينك دلنيرada meediyaha fanaaniinta oo ay ugu horeyso Maryam Mursal Ciise Bootaan geedi yar yare iyo fanaaniinta kale oo faraha badan oo magacooda la soo gaadhay iyo Faysal kamid yihiin karaamo waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh intaas kadib waxaan rabaa inaan mahad celiyo guddigii soo qaban qaabiyay xafladan quruxda badan ee lagu soo dhaweynayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wafdiga la socdo waxaa kaloo mahad celinayaa guddiga farsamada sidoo kale ee aniga oo halkaas fadhiyo saxaabada la fadhiyay cabdiraxmaan waxaad mudan tahay inaad madaxweynaha fadhiistid oo halkaan soo fadhiisay oo mahad celinayaa intaas kadib uma soo diyaar garoobin runtii khudbad dheer in halka ka akhriyo hase yeeshee khibradayda iyo da'dayda aan ka faa'iidaysanayo waxaan rabaa bal inaan wax yar ka taabto waxaan isleeyahay Soomaaliyeed halkaan fadhiso dhagahooda ay anfacayaan insha Allah laakiin as dhageysano dad badan baan shaqartooda maqlayaa aan is dhageysto sida la socotiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee noqdo madaxweyne aan ku meel gaar ahayn wuxuuna xukunka hayay 4 sano madaxweynaha waxaad la socotiin inuu hawl badan qabtay runtii oo lagu farxi karo inkastoo hawsha oo qabyo ah sidoo asaga noo sheegay madaxweynaha oo ka tagay una jeclaan lahaa inuu dhammaystiro hawshaas qabyada ah waa runtiis waa hawl qabyo ah saacadan aan la hadlayo madaxweyne farmaajo iyo prime minister khayr haddii la weydiiyo waxay ku leeyihiin waa qabyo weli waa dhammaystiray u baahan tahay 2 sano kadib waa runtood laakiin ogaada qabyadaas ayada ah ayaa si kala qabyaysan qaar baa wax yar qabyo u dhiman tahay qaarna qabyo weyn ayaa jirta saad la socotiin Somaliland iyo Puntland waxaad moodaa qabyadooda inay ka yar tahay meelaha badan oo kale oo ka mid tahay caasimadda Soomaaliya ama gobolka Banaadir waxaad ogtihiin inuu ahaa 57 sano caasimad ahaa ama 58 sano waxaa loo soo doonan jiray waxbarasho ilaa jaamacadeed waxaa jooga dad ilbax ah oo aqoon-yahano ah oo khibrad badan waxaad ogtihiin gobolka Banaadir waqtigan xaadirka ah inuu laalaado oo saan u laalaado oo laayahay meel uu ku soo dago oo ku yeesho maamul ayaad ogtihiin inuu noqdo madaxweyne maamul goboleed inuu yeesho ilaa hadda meel uu ku soo dago laayahay goboladii u dhawaa sida Galmudug iyo Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe waxaad ogtihiin waxa ka jira maamullo madaxweyne leh hase yeeshee waxaad ogtihiin in maamullo magac ay ka yihiin hase yeeshee maamul culus oo u dhigma Puntland iyo Somaliland inuu ka jirnaa ogtihiin maxaa keenay markaa inay qabyo noqdaan xoog ah kuwaasna ay qabyo weyn noqdaan ama yaraad maxaa keenay waxaan aaminsanahay waxay tahay Puntland iyo Somaliland waxa hoggaanka u qabtay dadkeedii ah oo khibradeedii leh da'deedii leh maamulkeedii leh ayaa hoggaanka u qabtay dhinacan kale waxaad moodaa dadka hoggaanka u qabtay wasiir ha noqdo xildhibaan ha noqdo wax walba ha noqdaan maamul ha noqdaan dad ama junior ah oo aan aqoon badan u lahayn khibrad oo qalbi fiican laakiin aan aqoon lahayn iyo dad warlord oo qori ku dagaalamaya marka dadkii aqoonta lahaa ee gobolka Banaadir iyo kuwa ku dhow joogay waxaad moodaa inay gabadeen oo ay gurigooda joogaan ay guriga gabanayaan waxaan leeyahay dadka gurigooda ku gabanaya aqoonta leh inay soo baxaan oo ay wax u taraan sidii wax u noqon lahaa gobolka Banaadir iyo kuwa ku dhow si ay wala mid noqdaan siyaasiyan goboladan ka soo sheekeeyay oo ah Somaliland iyo Puntland waa maasantiin